waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وسلامتين أرضية ملك استود شوكتان. وحسدني يجوه الرئيسي مادة السجان تامة في صوماليا. وحسوق كندم بيسي هدو إلى هبنا كيل لي هاي كورونا فيروس أنت كوه الرئيسي عشان رده إنه هالكي أي تاجناين أيوم بينما أنت كسب بلابنا. waxaan ku dhex jirnay cutubkii weynaa ee ahaa heesawleeda haddaynu casharadii hore wax yar iska xasuusino heesawleedu waxaynu ku soo qaadanay intii hordhac ahayd waxay tahay iyo suugaanta halkii kaga jirto iyo kaalintay ka qaadato suugaanta iyo qaybaheeda kaalintay ka qaadato muhiimadda ay leedahay siday ku curato halkay kaga jirto suugaanta marka loo eegayo sida curinteeda waxaasoo dhan waxaynu ku soo qaadanay casharadeenii ugu horreeyey sidoo kale casharadeenii ugu horreeyey waxaynu ku soo qaadanay qaybo ka mid ah heesawleedda waxaynu soo horreysiinay heesawleeddu laba qaybood ayaa loo qaybiyey heesawleed loo qaado heesawleedda xoolaha ama hees xoolaad iyo heesawleedda loo qaado farsamada oo hees farsama heesawleeddii xoolaha loo qaadiyey waxa ugu badsada baynu had iyo jeer ugu badan geela sababtuna wax kale ma ahayna geelu waa ugu manaafacaad badan yahay waanu ugu dib badan yahay marka xagga dhaqashada laga eego sidaas darteed buu ku qaatay heesaha ugu badan isla markaana loo curiyaa hawlihiisa kala gedisan waxaynu soo qaadanay oo ka mid ahaa heesaha aynu soo qaadanay geela kow heesihii waraabka ahaa ama shubaashii baynu qaar ka soo qaadanay laba waxaanu soo qaadanay heesihii geediga marka geela la geedigelinayo ama socodka dheer ku jiro tusaalayaal badanna waynu ka bixinay waxaynu soo qaadanay caraabihii iyo marka la galab carrawsiinayo geela heesaha loo qaado ama loo tiriyo waxa kaleynu tusaale ka soo qaadanay heesaha allahumma musta'an marka geela marka geediga la gelinayo marka la caraabinayo marka la shubayo shubaasha ku jiro intaaba tusaalaynu ka soo qaadanay waxa kale oo aynu doonaynaa inaan yara dul istaago casharadeenii hore oon isku soo xidho hees hawleedda guud ahaan sababaha loo tiriyey iyo ujeeddooyinka ka dambeeya waxaynu ku soo koobnay haddaynu dib isku xasuusino 3 qodob oo muhiim ah qodobka koowaad wuxuu ahaa ujeeddada ugu weyn ee hees hawleedda loo curiyaa waxay ahayd in la isku dhaafiyo dhibta ay hawshaasi leedahay in la isku dhaafiyo hees hawleeddu waa heesa gaagaaban waxay ka curataa marxalad shaqo oo markaa la hayo gacmaha lagu hayo ujeeddooyinka ugu waaweyn loo curiyo waxa ka mid ah in hawsha dhibteeda iyo culayska ay leedahay la isku dhaafiyo si aanay dadku had iyo jeer culayska iyo rafaadka hawshu leedahay aanay ugu caajisin ama u dhibsanin waxa kale oo ujeeddooyinkeeda ka mid ahaa hees hawleedda ujeeddooyinka ugu waaweyn loo curiyo ama laga faa'iideysanayo fariimo ayaa la isugu gudbiyaa ku saabsan hawsha la qabanayo مثلا haddii xoolo loo heesayo hees hawleedda loo qaadayo waxaad ka garanaysaa fariimo fara badan oo hawsha ku saabsan iyo xoolaha loo heesayo tusaale ahaan wuxuu inuu geel yahay ninka markuu hees hawleedda yaqaano isagoon hawsha u jeedin ama aan indhihiisu haynin heesta meesha ka baxayso dhigtiisu maqashayba wuxuu ka garan karaa hawshaasi inay tahay hawl xoolaad xoolaha si la waraabinayo ama loo shaqeeyo inuu geel yahay ama loo yahay ama ari yahay wuxuu kaloo garan karaa shaqadaasi inay bilow tahay
inay bartan tahay iyo inay dhammaad tahay waxyaabaha kale cajiibka ah ee hawleedu leedahay waxay ahayd waxa kaloo la isugu gudbiyaa fariimo dhaafsiisanba hawsha oo fariimo bulsheed oo nolosha bulshada qayb la xadla ka qaata matalan tusaale ahaan marka ay haweenaydu hadhuurka tumayaan mooyaha marka haweenku tumaya iyadoo mooyihii tumistiisii lagu jiro ayay haddana fariimo wax ku oo la gudbinaysaa daayartii marka hareer tubnayd ama se hablihii ay dhashay ama ciddii marka ay mas'uulka ka ahayd tusaale waxa ka mid ah saddex markay hadhuurka tumayaan heesaha tiriya waxa ka mid ah saddex kaaga diga kaaga deyriyaya kaaga diindhigaya ninka gaaban ha guursan oo waxaadan u guursan hadduu geelu cadhoobo maraqsaarka ma gaadho gunduhu ka dhaya ninka dheerna ha guursan ninka dheerna ha guursan hadday gaaja timaado gurigu iskugla ninka geesiya ha guursan haddii geela la qaado gebgeb buu ordaayo gegadaa la dhigaayo gobla buu ku badaa bal hadda hooyadaa u fiirso hadhuurkii iyo waxanba way dhaaftay oo waxay fariin u gudbinaysaa inanteedii xilligaa guuri joog ahayd ee gashaantida ahayd oo ay leedahay hooyoy haddaad iga dambayso saddex iska ilaali ninka gees gaaban ee ha guursan bay leedahay sababtaadan u guursan wax kale maahee waxaanu ku laacayn bay waxa la xuquuq qabanayaa ma jirto hadduu matalan geelu cadhoobo keliya maraqsaarka gaari maayo bay tiri bal hadeeg inantii dhagahay ku qaadaysaa inta hadhuurna waa la tumayaa garo waa fariin dhammaystiran waa message ay hooyadu u gudbinayso inanteedii ay dhashay waxa kale u sheegtay ninka dheerna iska ilaali bay tiri ha guursanee ka sii dheer ee daadka u sii dheer dharka islaame midna waa qurux midna waa dhar xad dhaafa kaana ha guursan bay tiri oo maxaa dul guursan waxay islaantaasi ku sheegtay waa nin jileec bay tiri oo haddii ay hawle timaado reerku guuro gaajadaan uu dul qaadano meel uu isku glibay tiri waxa kale islaantaasi fariinta ku dartay ninka geesigaana iska ilaali bay tiri hooyaa guursan su'aasha meesha ku jirta bal adeeg qof kastoo caqli leh wuxuu sooranayaa islaanta inanteeda geesiga u diiday maxay ugu diiday iyadii baa sababaynaysa waxay tiri haddii geela la qaado dagaalba yimaado gebgeb buu ordaayo intuu ismaqiiqo gegada saa ku galaayo markaaba waa la dilaayo markaaba uu dhintaa oo xaggaasi waxa kaga ammaan mudan fulaha oo Soomaalidu fulahay halka ammaan u haysaa ee tiraahda fulaha habartiiba ma goblanto taa ka soo horjeedkeeda waxay noo muujinaysaa geesiga inay habartii markaa goblamayso islaantaas iyadoo saddexdaas sababood labay mooyaha heestaa yar naqanay mooyaha ay ku tumayso ayay fariinta dhaxalgalka uga tagaysaa haweenkii markaa yaryaraa ama se hablaheedii markaa garab joog taasina waa taa maxaad iga haysaa laba ujeedo ta koowaad oo ah in hawsha iyo rafaadkeeda iyo daalkeeda la isku dhaafiyo iyo tan labaad oo ah in fariimo wax ku ool ah oo hawsha ku saabsan ama se nolol maalmeedkaba ku saabsan la isugu tabiyo waxa kale oo ay hees hawleeda ujeedooyinka loo tiriyo ama loo qaado kamid aha in lagu xasiliyo duuyada markaa hawsheeda faraha lagu hayo ee meesha tuwan in lagu xasiliyo oo marka xoolaha loo heeso iyo marka loo heesin si uma wada dhaqmaan si uma wada cabaan si uma wada daaqaan awrka marka la rarayaa daan loo heesin si uma wada fadhiyo uma xasiloona waxaad garanaysaa marka heesto inay ka qayb qaadanayso qabashada hawsha la qabanayo inay qayb libax la ka qaadanayso inta marka soo dhaafa hadaba maanta bal waxaan u imanaynaa casharkeennii oo daba socda casharadii hore ee aynu geela ka soo qaadanay geela waxaynu soo aragnay heesihiisii hore oo dhan hees hawleeda geela loo tirinayo markaad geel ahaan ka timaado waxaad daba socotaa saddex su'aalood unbaa muhiima marka aad baranayso hees hawleeda inaad maskaxda ku hayso saddexdaasi waxa weeye heesta meesha kuugu qoran maxaa loogu heesaa inaad ka garanayso heesaha kale maanta de geel ba halka kuugu qoran oo waad garanaysaa wuxuu inuu geel yahay laakiin haddii loodii arigiidii iyo maqashii la isku ka wada daro su'aashaasi waa muhiim maxaa loogu heesaa inaad meesha ka dhex garan karto waxaanad ku fahmaysaa sunnad ama baadisoo heestaasi leedahay ama ku dhex qarsoon ayaad ku garanaysaa waxaan loo heesayaa inuu shaygaa yahay xilliga loo heesayaana inuu xilligaa yahay su'aasha markaa ugu horraysa ninka maskaxda ku haynaysaa markaynu heesta dhiganayno waxa weeye maxaa loogu heesaa kow goormaa loogu heesaayo su'aasha labaada laba fariinta ay heestani gudbinayso ama aynu ka faa'iidaysanaynaana maxay tahay waa saddexda su'aalood
ee ugu badan ee hees hawleedkaaga iman kara hadday imtixaan tahay iyo hadday kadis tahay iyo hadday laylis tahay iyo hadday waxqabad iyo assignment lagu diray tahay intaba saddexdaas su'aalood baa ugu badan imika ta koobaad jawaab uma baahno maxaa loogu heesaa waa geela goormaa loogu heesaana dee way kuu qoran tahay oo waa xilliga daajinta taynu ku raagaynay markaa imika heesaha meesha inoogu qoran aynu kala baxayno een doonayno inaan isdhandhansiino ardayow waxa weeyaan waa maxay ujeeddada ama fariinta ay tabinayso heestaas bal haddaba heesahan daajinta eeg daajintu waa marka xoolihii ay meel shayd daaqayeen hawdkii ku jiraan ama se dhulkii bannaanaayee sudihii ay joogaan xoolihii daaqayaan ayaa heesahan loogu dhuftaa loo qaadaa iyagoo daaqii ku jira heesaha haddaba daajinta sumadda ugu weyn ee lagu gartaa waxa weeye waxaad ku dhex arkaysaa inay heesihii lafteedii ka dhex muuqato ereygii daaqsintu oo wixiiba aad halkan ka dhex aragto in la daajinayaba kow ama inaad ku aragto dhirtii noocyadeedii kala gegedisnaayee geelu daaqayay qaar ka mida inay meeshaba ku suntan yihiinoo la soo qaadanayo midhya laba oo hees waliba midh ka sheekaynayso waxa kaloo aynu ku qaadanaynaa habdhaqankii geelu u dhaqmayey marka uu daaqayo ayaad haddana wax ka dhex arkaysaa oo xoolo kastaa habdhaqan bay leeyihin markay daaqayaan habdhaqan bay leeyihin idahoo kale haddaad ka soo qaadato waxay caan ku yihiin foorar inay dhulku sidaa u tuustaan oo aanay madaxaba kor u qaadin waxaa loogu heesaa deyla foorara adoo foorara oo aan filanayn foorihii gugu fooda kaa qabay oo na kala furay foorarkaasi xoolaha idaha iskale waxaad kalood arkaysaa in riyahoo kale ama selooda cawska iyaduna ay carabka sidaa ugu laabayso ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa geeska imika matalan geedalaaca oo kale geelaad ku arkaysa geelu inuu mar walba geedahaa sare uu isagu ku caan yahay oo mar walba xoolaha had iyo jeer ugu geedalaaca badan lihi inuu yahay geela waayo waa waxaa ilaahay marka horeba luquntiisa kala bixiyey samays ahaanba kaga duwan xoolaha kale bal haddaba halkeennu kaalay intani waa tusaale wax alla waxa halkaa kugu qorani waa tusaalayaal waxa tusaale loogu qoray waxa weeye si aanad ardayo ugu qaadanin afartan xabe meesha ku qoran ama dhowrkan midha meesha ku yaallaa inaanay heesihii daajinta geeloo dhani meesha kuguma dhanna maade kasta waa sidaa waxa lagu dhigayaa wax yar laba su'aalood markaad wax ka shaqeeyso maadooyinka had iyo jeer technicalka wax laga shaqeynayo xisaabta iyo physics-ka iyo laba yar oo su'aalood baa lagu qori labada yar ee su'aalood baa lagu furfuriyo macallinku ku tusi boqolaal su'aalood oo buugta ku qoranaada laga rabaa inta yar markaa waa inoo tusaale markaynu intaa qaadano waxa laga rabaa inaad awood u yeelato boqolaal heesood oo kale oo daajinta geela inaad ku garan karto baadi socda iyo sumadda ku jirta inaad ku garan karto kow bal hadee wuxuu ugu heesayaa hadba laba geed kii hadhweynee hadoodilan raac hadba laba geed kii hadhweynee hadoodilan raac geelu mar alla markuu daaqayo horta hawd buu u badan yahay geedweyntu ku badan tahay qodxaha leh geed waliba geedku ku hadhacsan yahay ee uu ka damalsan yahay ee uu ka magool badan yahay uu ka laama fiican yahay ayuu geelu ku samaadaa ayuu raacaa waxaad arkaysaa dhowr neef oo geed ku kulmay oo geedkii intay dhinacyada ka xiireen ka tegayo geed kaloo ka hadoodilan haddana sii raacaya sumadii buu inoo sheegayaa wuxuu leeyahay hadba laba geed kii hadhweynee hadoodilan shaqlan macnaha raac waad garanaysaa wuxuu markaa inuu daaqsintii lagu jiro waad garanaysaa fariintay gudbinaysaana waxa weeyaan geelu mar walba inuu naqraaco oo uu geedaha kala doordoorto oo uu ikhtiyaar daaqo oo meeshu tahay berisamaad lagu jiro ee geeduhu hawran yihiin aanu geed keliya ku egaanin iyo fadhan keliya aanu ku egaanine uu geedaha naqa wanaagsan la raaco ayay heestu inoo sheegaysaa hadba laba geed oo kii hadhweynee hadoodila raac bal hadda tan labaad eeg meeluu mayay helay oo mid kala miray oo marooriyo geeda mulaya leh marmaroojaay meeluu mayay helay geela had iyo jeer waxaan laga waayay meel barwaaqaha uu naqraacayo geelu marka la xiriyo geel had iyo jeer sida xoolahan kale xeer uu laguma hayo waa geel xoolo ka madax bannaan in gacan bini aadan sidan loogu hayo xero lagu soo xariyo aroorta laga foofiyo geelu wuxuu u badan yahay waa la xirgeeyaa waa darajooyinka uu xoolaha kala dheer yahay
marka la xirgeeyay meel fog loo foofgeeyay geela meesha loo foofgeeyay isaga naqraaca oo meesha mar walba way la roobaad ama naacawdii xareed ka urinayo ama higilkii geedaha halka ka arkayo ayuu raacayo lagama kara geel hatta hadii ka soo leexilaysna lama karo sidaas darteed ninkan wuxuu leeyahay uu ku suntayaa sheestan meel uu mayay helay oo mid kala miray roobaba iskaga daba daay mayaga waxa la yiraahdaa waa roobka aroortida subaxdii sida ka saaka daay oo kale waa mayay ee lagu waabaristo hadduu habeen daana gudguday iyo miraale iyo baa la yiraahdaa marka meel uu mayay helay roob arooriyaad ku baristay oo mid kala miray oo haddana habeennimo mid ku daay oo marooriya geeda mulayale markay waxa soo nimci iskaga daba dhaceen geedihii ay marooradu kamid ahayd iyo kuwa kale oo aad u baxay mulayga waxa la yiraahdaa geedaha aan hortii la taaban ee arjawdi ku taalee sida wanaagsan u baxay marooraduna waa geed kamid ah geedahan geed saarka la yiraahdo geed saarku waxa weeyaan waa geedahan qadowga iyo ay kamid ka yihiin dhilowyahanka iyo ay kamid ka yihiin geedaha ku maran ayaa la yiraahdaa geed saarka marooradu waa geed saarka kamid ah dhadhankiisu waa dhanaan dadku siyaabo ka yar oo kala duwan bay u isticmaalaan meelaha hawdka oo manaha dadku way deertaan oo waa la dhanaansadaa meelaha qaar waxa laga deertaa meedhax siibsiiban oo weelasha iyo wixii la mid ah yaa laga tolan jiray geeluna uu ku jeel baxaayo maroorada uu daaqaayo uu jecel yahay sidaas darteed buu geedaha maroorada meesha wuxuu yiri marka meel uu mayay helay oo mid kala miray oo marooriya geeda mulaya leh marmarooja tiisada u daaqaysay wuxuu inay daaqsin tahay marka way iska cadda waxa geedaha mulayga leh iyo nimcada raacay inuu geel yahayna way inoo caddahay soo bal hadda tan labaad eeg markuu himirtiyo tan saddexaad hareeriga cuno habeedin ogey markuu himirtiyo hareeriga cuno habeedin ogey himirtiyo hareeriguna waa laba geed oo kale himirtu waa geed sal balaaran oo midho waaweyn oo kuskuusan buu bixiyaa waa laga qaraabsadaa geed qaraabku ka mid yahay jiridiisa iyo laamihiisa adagna waxa laga qortaa fandaalada iyo gudayaasha iyo dhurayaasha iyo wixii la mid ah ayay Soomaalidu hor ka qorin jirtay himirta hareeriguna waa geed weynta ka mid oo aan qodax lahayn geela labadaba aad u jecel oo daaqa labada markuu geelu daaqo ayuu habeedin og yahay habeedu waa kaadidi marka meeshan imka habeedintu habeedda marka la yiraahdo geela habeedu waxay ugu jirtaa meel sare oo aynaan inagu malaysan karin bay geela ugu jirtaa murti Soomaaliyeed oo labaali ah baa waxay tiraahdaa geel haan habeedin iyo haween aan buraanburin labaduba halkoodii may gaarin bay Soomaalidu oran jirtay geel aan habeedin iyo haween aan buraanburin labaduba halkoodii may gaarin waxay u jeedaan nacam haweenkuna darajada ugu sareysay barigii hore lagu qiimeyn jiray waxay ahayd haweenaydu markay maskaxdeedu gaadho heer ay buraanburi karto geelana marka halka ugu sareysay noloshiisu ugu wanaagsan tahay waa geel habeed leh oo bahashay sidaas kugu gaashiyo casku casay sida darteed waxaad garanaysaa geela markay xaaladiisu wanaagsan tahay ee uu meel fiican oo daaqo inuu darajada ugu sareysa gaaro habeediyo markaasuu ku amaanaya wuxuu leeyahay markuu himirtiga hareeriga cuno tii habeedin ogeyday ee nolosheedu meesha ugu fiican ay gaari ogeyd habeedu waa qurux xagga geela de xagga reer magaalka laakiin waa nijaas iyo wax fool xun oo qarmuun oo dadka qaar ay ku sheegaan niman geel aqoonin baa geel yaa la yiri waxaasi waa geel oo gabdhaha laga bixiyaa markaasuu wuxuu yiri baa la yiri ma waxa isku kaadsheen foosha xulle ayaa laga bixiyaa hablaha isku kaadshay ninkaas habeedinta dadka reer guuraaga ah ee xoolo dhaqatada ah deegaanka ay degan yihiin ama deegaanada geelana habeedu ammaan baabay geela u tahayba oo hees hawleediisa shubaasha waxaad ka arkaysaa iyadoo habeeda la dacarsanayo la udgoonsanayo oo uu leeyahay umul wiiliyo aroos ma ihide xagu unsigu kaaga soo uray unsiga uu sheegaya unsi kala ma waxa weeyaan waa habeedii baa ka soo kamkamaysa marar kale waxa kamid ahayd heesaha siniinta udgoon wayna saaqday ma isaga sida oo sibraha kule bal hadeeg wuxuu ninkaasina sheegaya habeedaasi inay leedahay ur udgoon oo sufuuro wanaagsan oo geel jiruhu hadii aanu urtaa urin xaaladiisu baan wanaagsanin marka geelo habeeda sida loo jecel yahay wanaagsan
wuxuu keenaa buu leeyahay markuu himirta iyo hareeriga cuno labadaas waa amaan uu ku amaanaya daaqina uu ka dhex muuqdaayo wadiga arkaya himirta iyo hareeriga uu cunayo waa daaq wuxuu inuu geel yahayna dee waa ku cadaho habeedii baa meesha kugu jira ku sii soco waxa halkan hadana inoogu heesta afraad wuxuu halkaa ku suxusaya geelu mar walba deegaanada aan xoolaha kala gaari karin marka la idaaqayaan ayuu gaadhaa waad kaymaha dugaaga badan leh libaaxa iyo goosho halka is dhex hurdaan ayuu isna daaqaa dabadeedna isagoo arintaa ka dardaar warinaya wadnahana farta ku haya isla markaana ka waaninaya oo aad moodo inuu dhagta ugu sheegayo neefkii geel ahaa ayuu leeyahay ayga guunkiyo ay gooshu ayga guunka ah ee ay gooshiyo gaanigu hurdaan goray miratooy annahay geyn adna ha u gelin ayga guunka ah ee ay gooshiyo gaanigu hurdaan goray miratooy annahay geyn adna ha u gelin goray waa hal magaceed goosha iyo gaaniguna waa labkii iyo dhidigii libaaxa weey oo goosha waxa la yiraahdaa inta ay yar tahay intaanay curan gaanigana waxa la yiraahdaa labkeeda la dhigeeda ah ee isaguna aan curan markuu weynaado aar baa la yiraahdaa markii gooshu weynaatana qarari baa la yiraahdaa dhashay dhalaana caga baruur baa la yiraahdaa shanta magac baa libaaxa u diiwaan gashan marka wuxuu leeyahay ayga guunka kaynta gaamurtay ee aan cidi hortay gelin ee gooshiyo gaanigu isbarbar hurdaan waa libaaxyadii goraydii miranaysay ee halkaa daaqaysay Allah kugu dhaariya annahay geyn adna ha u gelin marka wadnuu farta ku hayaa wuxuu ka baqayaa geelan inuu libaaxyo farfadhiyo oo la galo waa kuwa lagu daajiyo weey waqtigeenu iska kooba waan dul marayaa xiisadaheenu kullay way soo noqon doonaan inta coronavirus ku jiro kamaradaasina way soconaysaa arday hadhayalsanina biliis waxaas hoos u eega waa waxaad ku dagaal galeyseen ee imtixaanada kaga baxaysaan waa casharadii iskuulka lagugu dhigay oo daaha dabadiisa lagaaga soo dhigayo sidaas daraadeed marka tusaalayaasha lagu siiyo inta kalena adigu sii wadwado tashanaad haddaan raaciyo bal haddee mareega indhuhu waa muraayade ha marmarinoo maraaga ha gelin mareega waa hal buuga jeedaa garo wuxuu leeyahay indhuhu waa muraayad oo daway naga arkayno indhuhu waa wax nugul qodax iyo wax la galgaliyana ma qaadi karaan had iyo jeerna geelu wuxuu u badan yahay inuu qodxeedka daaqo sidaas darteed geedaha uu sidaa u falfaliinaya ee qodaxdu duulayso ayuu uga cabsi qabaa inay indhaha ka galaan fariintanu markaa faraya oo hashii kula hadlaya hees hawleedu laba siyood bay u dhacdaa labada siyood sida koowaad waa qofayn in neefkii lagula hadlo la leeyahay neef yow sidan iyo sidan yeel oo la qofaynayo iyo in fariin laga gudbinayo oo hoga tusaale neefkii wixii uu geeyay wixii uu gudo fariin laga tabinayo waa labadaas siyood kuwani markaa waa kuwa hasha kula hadlay wuxuu leeyahay mareego indhuhu waa muraayade ha marmarin oo maraaga ha gelin maraaguna waa geed qodxeedkii baltaneeg sidii bahalkii baabusha lahaa meel bannaan iyo boodhis laga doy geelu waa wax gelgelin jecel hadii sheerna meelaha bannaanka ah ee aan xoolaha kala daaqin ayuu daaqaa mar alla markuu daaqiisa iyo waxyaabaha iska wato waxoogaa ku yar nasto ayaa waxa dhacda inuu sameeyo geelu meel yar oo bannaan oo burciida hadduu helo inuu iska gelgelimaysto dadka hadii jeer sii ku urgalaa waxay yiraahdaan dulinka iyo waxyaabahaas ku badan oo qofka bini aadankiiba inuu iska xoqxoqdo waa ka jecel isaguna waa xoqxoqashadiisa bay yiraahdaan oo adigu waa iska cilmi dhagoodkuun bay waxyaabahaas ugu soo gaadho waxay nooga xogogaalsan dadka hadii jeer xoolo dhaqashada ah marka geelu gelgelimeysiga hadii jeer lagama waayo sidoo si la midana dugaagana waxa ugu gelgelimeysi badan bahalka libaaxa la yiraahdo sida darteed buu isugu ekaysiinaya ninkan wuxuu ku leeyahay sidii bahalkii baabusha lahaa meel bannaan iyo boodhis laga doy tii meel bannaan iyo meel boodh ah uu sidaa ugu gelgelinaysay bal hadda tan kale eeg markuu dabadiyo dambeedada lulo kayma daran liya dalsan buu helay yaa salaam markuu dabadiyo dambeedada lulo geelu markuu xasilo ee uu geedo fiican helo ee uu sidaa ugu lisay aan cidi ka dhaxgelaynin dabadu sawlula sida uu waxay muujinaysaa inay u dhan tahay oo aanay waxba ka dhimin sida darteed buu ugu suntay wuxuu leeyahay markuu dabadiyo dambeedada lulo geelu dambeedadu waa candhada labadii naas ee dambe
kayma daran liya dalsan buu helay darantuna waa geedaha lagu jeel bixiyo oo waa geed gaabka oo qaybta ramaaska ay raacsan tahay oo mid dhadhankeeduna waa dhanaan una ku jeel baxa marka meel wanaagsan buu daaqaybay ayay muujinaysaa buu leeyahay bal hadda taneeg sidii ari badan oo ban lagu furay baa la dheerow haygu baahina isku soo bay heestaasi waxaan xasuustaa imtixaanadeennii la soo maray sanadadii hore laga soo maray waxaan u malaynayaa 16 ama 15 labada mid ahaan inay tahay ayaa lagu soo daray dabeedna waxaa la yidhi sheeg waxa loogu heeso ardaydii waqtigaa imtixaanka gelisay nasiibka u heshay markay arkeen arigaa markay arkeen bahashii way ka qaldantay uno waxay yidhaahdeen waxa loogu heeso ariga loogu heeso way isdaba marin markii la saxayay arigan waxa meesha loo keenay waaba ekeey oo waa loo ekeysiinayaa una wax shuqul iyo shaqo ku leeyahay ma jiree geel baa loogu heesayaa oo la leeyahay sidii ari badan oo bal lagu furay ari fara badan oo tirooyin ah oo ban sida loogu sii daayay baa la dheerow haygu baahine isku soo baydh war bahal yahow dhaadheer haygu foofxumaan isku soo baydho ugu soo dabaalaya marka wuxuu waa geel laakiin si ariga waa ekeysiin haanu bay ugu jirtaa marka roobdo ee ramaas baxo laanta rucubta ah ha sii ruugina raaxay taareeb bal hadeeg wuxuu leeyahay marka roobdo ee ramaas baxo ramaasku waa cusubkii iyo ugubaadkii sida uu soo baxo mur yiraahdo laanta rucubta ee qoyanaysa u jeedsanay arjawda leh ha sii ruuginoo ha ku raagine raaxay taabal reeb oo xabada ka tag buu leeyahay maantoo dhan buu geeli daaqay maantoo dhan isagoo ku wada ayuu xilli maqrib ku dhaweey buu doonay markaa inuu ka dhaqaajiyo wuxuu arkay neefkiiyo sii wada oo sii daaqayo sii macaansanaya uu kaga furfuraya markaa heesta wuxuu leeyahay marka roobdo ee ramaas baxo laanta rucubta ah ha sii ruugine raaxooy taareeb raaxo markaa hal magaceed baa halkan ugu jirta hablahana waa loo bixin jiray oo wanaag baa magaca loogu bixin jiray inta haddaynu kaga nimaadno ardayga waxa halka ka garatay hees hawleedka qaybaheeda kala duwan qayb walba wax lagu gartiyo baadiso ayaa la socota hees hawleeda waxa loo qaadayo iyo xilliga waxa loo qaado iyo fariintay gudbinaysana heestiyada is sheegaysa mar walba oo isfasiraysa adiga waxay kaaga baahan tahay inaad u fiirsato isla markaana taqaano dabciga iyo waxyaabaha kala duwan ee xooluhu ku kala gedisan yihiin heestaasina markaa si aad sumadeeda u soo saari karto inta haddaynu haddaba kaga nimaadno halkan waxa ku yaala laba yaro su'aalo labadaasi waa tijaabo bal waxaanu dirayno iyo waxaanu soo dhignay iyo kamaradaasi iyo waxa hawl dhacday inaad la socoto iyo inaanad la socon labadaas su'aalo si looga soo jawaabaan ku garan doona hadduu ilaahay yiraahdo labadaada laga rabaa caawa ilaa britoolana jawaabta waa inaad soo dhigtaan halkii gruubka inaad soo dhigtaan la idinka helo ardaygii labadaas su'aalood jawaabtooda isku soo daya waan nood garaysanaya waan la soconaya waxaan ogaanayaa ardaygaasi inuu la socdo xiisadii ardayga laakiin aan waxanba tororog u haystee sidii asmaloof ugu dhageysanaya ama musalsalka loola soconayay inuu noolo yar socda ee tororog ee isdhaafdhaafiya halkaa ka meedha iyaduna tiyo madbaha ku jirto oo xashiisa halkaa soo dhigatay fisikskii loo dhigayo waxa la kala macaashii urhayna way ka soo bixi halkaasi ka soo bixi laakiin midun baan anigu idin sheegaya arrintaasi waa arrin muhiim ah Soomaalidu waxay oran jirtay saaftin loo kordhigay ciid doqon baan u garan hilib wax alla waxa qofka bini aadamka waxa ugu wanaagsan waxa uu gacantiisa ku haysto muhiimadda ugu weyn ee leedahay waad soo ceeshan kartaa waad dawlad garaysan kartaa waadeen ku bustahaaga hoostiisa adoo ku jira yaad xiisadii Soomaaliga halka ugu dhigay oo aamus si xaqan soo egta lagu hayay dhigan kartaa sidaas darteed baa haday waqti yar siiyo u hawl galo intaas idinka idinta laay labadaas su'aalo jawaabtooda raba kow horta waxa labada su'aalood wax kale laga maro labadaniba casharkan ay la socdaano geela loogu heesaa xilliga la daajinayna waa loogu heesaa labadaas su'aalood marka jawaabtoodii kaama doonayo su'aasha saddexaad baan ka rabaa hees walba bal fariinta ay gudbinayso ayaad soo sheegaysaa sharax guud ka bixi hees hawleedyadan fariinta ay gudbinayaan ta koobaad wiilu cagagsaday caata badana cawsu daaqayna cusaybkiisii caarada maqan
hadda fariinta halka ku dhex jirtay waxay heestu ka sheegaysaa geeli soo qabo talabaadna waxa weeye mangalool iyo geelu meeygaag kama maarmo meel uu ku og yahay waa u muuda mangalool iyo geelu meeygaag kama maarmo meel uu ku og yahay waa u muuda ereygaas saanad ugu qaldamin waaba lagu sheegay waxa la guuri waa u dhuntaa baa loo jeedaa bal haddaba fariin labadaasi sharaxo haddii laga weydiin lahaa imtixaanka lagu soo dir lahaa wixii aad oran lahayd oo qoran baad soo dhigaysaa haddii la yiraahdo de khayr ya insha Allah guul baan idin rajaynayaa waan isku soo noqon doonaa inta hawlahan socdaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh